الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله تعالى وحن هل كان كسو قدبينينا إن شاء الله تلوين كسابسا قوركا وأن كلا تلينينو قبلها مسلمين خاصة سوماليدا هذا كور حلقة دي هوري وحن كسو تشيدين تلوين كسو عدا ويلشا هذا وحن سو تشيدينينا إن شاء الله تعالى talooyin ku socda gabdhaha guurdoonka ama la soo doono ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala inuu ku anfaco intii dhageysata waxaan ka hadli doonaa insha Allah sida gabadha muslimadda ah ay ku xulanayso saygeeda ama zawjkeeda nolosha la qaybsan doona waxaynu ognahay gabdhaha iyo wiilalba gabdhaha iyo wiilasha guurdoonka ah badanaa waxaa ku adkaada go'aanka guurka waxayna ka baqaan inay ka shalaayaan qofka ay doorteen diinteena islaamku waxay labada guurdoonka ah hor dhigtay runtii xeerar iyo qawaaniin hadday u hoggaansamaan guurkoodu oo mid ay isfaham iyo isjacayl tayo iyo wanaag leh uu ka dhalanayo uu noqonayo haddii ay talooyinkaas iyo tawjiihaadkaas diintu ay farayso ay raacaan haddaba markay rabto gabadhu inay guursato ama la soo doono ha raacdo talooyinkan ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala inay noqdaan kuwa anfaca maxaa loo baahan yahay hadaad gabar tahay inaad ku dooratid wiilkaad rabtid inaad noloshaada la wadaagtid calaamadaha iyo sifaadka lagu garto wiilka wanaagsan maxay yihiin insha Allah ta'ala waxaan soo jeedin doonaa dardaaranno iyo talooyin iyo tusaalooyin muhiim u ah xaaladaas ay gabadhu ay ku jirto marka la soo doonayo ama ay guur gaarto iyo waxyaalaha loo baahan yahay gabadhu inay ku doorato wiilkeeda ama wiilka ay rabto inay guursato saygeeda noqon doona haddaan soo koobno waxaan dhihi karaa waxa ugu weyn laba arrimood oo diintu ay sheegtay labadaas oo nabigu xadiis uu ku sheegay oo yiri isagoo la hadlayay nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka awliyaa al-umuur ah dadka maaragtay gabdhaha maaragtay laga soo doono weliga ah ama aabaheed ama walaalkeed ama adeerkeed ku doono ha ahaade uu nabigu wuxuu yidhi ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuhu hadduu idin yimaado idinka soo doono gabadhiina mid diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad ka raali tihiin u guuriya buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam marka arinka ugu horeeya ama tilmaanta ugu horeysa waa halka aynu haddaan muslimiin nahay ka duulno oo ah diinta marka hore wiilasha aan u naseexaynayna waa taanu ku niri gabadha diin ku dooro gabadhu marka wiilka ay dooranayso waa waxa weeye wiil diin leh wayn maxaa diin loo yiri diinta waxa hoos yimaada nolosha oo dhan waxa hoos yimaada gabi ahaan qofku siduu nolosha u arko diintu waa badbaado qofka raaca wuu badbaadayaa wanaag iyo baraare iyo bashbash ayuu ku dhaqmayaa maarag qofka diinta leh waa qof ilaahay ku xiran ilaaliya xuduudda Allah subhanahu wa ta'ala waa qof fartoomo wixii ilaahay uu faray kana hara wixii ilaahay uu ka reebay حسن البصري oo kamid ah taabiciintii waaweynaa ee saxaabada nabiga wax ka bartay oo nin zaahid oo cibaado badan ah ayaa yiri nin baa u yimid markaasuu ku yiri gabadhayda ayaan u guurinayaa حسن البصري baa ninkii wuxuu ugu dardaarmo ku yiri zawijha mimman yattaqillaha fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abqadaha lam yadhlimha u guuri yiri mid diin leh nin diin leh u guuri gabadhaada ilaahayna ka baqaya sababtoo ah hadduu jeclaadana uu karaamaynayaa hadduu u caroodo ka heli waayana ku xadgudbi mayo saan kor ku soo sheegnay markii horeba waxaa arinka labaad ee loo baahan yahay inay gabadhu ku doonato oo xadiiskii nabiga ee aan hore usoo tilmaanay laga fahmayo diinahu wa khuluquhu buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam hadduu idinka soo doono qof aad ku qanacdaan diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriyo marka gabadhu waxyaalaha ay ku dooranayso wiilka ay rabto inay isguursadaan
waxaa laba ka ah diinta kadib akhlaaqda diinta ka mid tahay oo nebigu waatuu yiri waxaba la iisoo diray inamaa bucithu liutamima saalix alakhlaaq aw liutamima makaarim alakhlaaq labada riwaayood baa soo arooreen marka waxaa la iisoo dirayba nebigu wuxuuba muhiimadii loo soo diray uuba kusoo koobay si uu akhlaaqda wanaagsan u dhammaystiro taas culimmadu waxay dhaheen wuxuu nebigu highlight garaynayaa oo uu tanwiihinayaa oo uu weyneynayaa akhlaaqda booska islaamka ay ka joogto marka waxaa loo baahan yahay diintu akhlaaq diinta ka mid tahay laakiin si gooni waxaa loogu sheegay ahmiyadda ay leedahay marka akhlaaqda wanaagsan maxaa looga jeedaa waa qofka dabeecadda wanaagsan waa qof runta sheega waa qof dabacsan waa qof samar badan waa qof dulqaad leh waa qof naxariis leh waa qof aan qalafsanayn waa qof u naxariista maaragtay qofka xaaskiisa ah qofka dabeecadiisu wacan tahay ee wanaagsan tahay inta badan waa mas-uuliyadda iyo xilka saaran kasoo bixi kara sidaas daraaddeed qofka aad dooranaysid gabar yahay ha ahaado habdhaqankiisu mid uu ku qotomo diinta islaamka akhlaaq wanaagsan ma leh calaamadaha iyo sifaadka lagu garto wiilka wanaagsan waxaa ka mid ah diin iyo akhlaaq ereyga diin marka aynu leenahay waxaa loola jeedaa fahamka dhabta ah ee islaamka iyo in qofka dhaqankiisu toosan yahay waxaa kaloo loola jeedaa loolama jeedo qof iska tukada salaada keliya oo maaragtay ama garle ama qamiis kaabsa loolama jeedo waxaa kaloo loola jeedaa qof u hoggaansama inuu yahay guud ahaan diinta islaamka qofka u hoggaansama shareecada islaamka iyo xeerarkeeda goor kasta iyo goob kasta uu joogo waa inuu hado qof maaragtay ilaahay ka baq markii la yidhaahdo ilaahay ka baqaya subxaana watacaala qof waalidkiisa adeecaya qof maaragtay faraa'idii ilaahay ilaalinaya qof mas-uuliyaadkii maaragtay garanaya saarnaa waa inuu ahaado wiilka wanaagsani waxaa lagu gartaa maqaamka iyo booska uu kaga jiro bulshada uu la nool yahay waa nin ku dayasho leh oo ka dhex muuqda bulshada uu la nool yahay dhaqankiisuna uu wanaagsan yahay hogaamintiisa adeegiisa diintiisa dadkiisa ma mid isolated ah ama mid maaragtay iska caraysan ama mid bulshada dhexdeeda aan macno ku lahayn qofka hadhow waxaa la garan karaa inuu reerkiisa uu wax u tari karo markuu bulshadiisa wax u taro calaamadaha lagu garto wiilka wanaagsan waxaa ka mid ah ninka fiican waa nin waqtigiisa qiimeeya oo jadwal ku socda maaha mid habeenkii iyo maalinkii ay iskugu mid ay yihiin waa nin qiimaha waqtiga garanaya ugana faa'iideysta waxa qiimaha leh uga faa'iideysta waqtigiisa aan ku dhimin game iyo turub iyo waxaan macno lahayn iyo fadhi ku dirir iyo waxa la mid ah waa nin yool leh iyo meel uu higsanayo wuxuu habeen iyo maalin u taagan yahay siduu naftiisa u horumarin lahaa qofkaas wiilka noocaas dayo hadaad gabar tahay tilmaamaha lagu garto wiilka wanaagsani waa daaci diinta ilaahay dadka ugu yeera marka aan leenahay waa daaci dadka diinta alla ugu yeera maaha macnaheedu inuu diinta aqoon dheer u leeyahay khasab maahan hadduu sheekh yahay diinta aqoon leeyahay waa wanaag fiican laakiin waa mid dadku ay uga daydaan oo dhaqankiisaaba dacwo ah wanaagiisa habu dhaqankiisa run sheegidiisa ballan oo hofintiisa dabeecad wanaagiisa naxariistiisa iyo waxyaala la midka ah waxaa lagu gartaa wiilka wanaagsan guriga uu ka soo baxo waa guri diinta alle saldhig uu tahay waa guri ikhtiyaareed waa guri ilaahay laga jecel yahay iyo cibaadadiisa gabadhana waataan hadda ka hor hadal saas oo kale aan niri qofkii dhageystay oo markaan wiilasha u naseexaynay maxaa yeelay gurigu qof ku soo barbaaray saameyn ayuu ku leeyahay hadduu guri u yahay dadka maaragta ku nool ama waalid ha ahaadeen ama dad kale u nool yahay dad diinta ay ka fog yihiin ama dhaqankooda uu xun yahay qofkaas badanaa saameyn ayuu ku lahaanayaa waa laga yaabaa xaalado naadira wanaadiru laa xukma lahu waa laga yaabaa guri xun dad wanaagsan ilaahay inuu ka soo saaro laakiin badanaa waxaad doorataa wiil reer wanaagsan maaragta oo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan lagu yaqaano ka soo jeeda waxaa kaloo lagu gartaa wiilka wanaagsan ee aan kula talinayno gabadhu inay doorato asxaabtiisa eeg oo fiiri ama saaxiibadiisu qofku waa muhiim jiddan in la iska fiiriyo saaxiibadiisu wuxuu had iyo jeer yuu la socdaa yuu ka agdhow yahay dad akhlaaqsan leh iyo diin wanaagsan leh ma la socdaa waqtigooda dad qiimeeya ma la socdaa maxaa yeelay qofka saaxiibka waxaynu ognahay waa muhiim inaad qofka aad dooranaysid aad iska eegtid saaxiibadiis maxaa yeelay waxay dhahaan
يعرف المرء بأقرانه قفك وحا لو غرتا صاحب كيس النبي صلى الله عليه وسلم واتو حديث صحيحة وكيري إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير جليسك وناكسن صاحبك وناكسن iyo saaxiibka xun waxay la mid yihiin oo tusaale u yihiin sida qofka iibiya cuduurta iyo barafuunada iyo udgoonka iyo midka dabka afuufa bay la mid yihiin marka qofka saaxiibka wanaagsan daa'iman saaxiibka wanaagsan wuxuu hogaaminayaa meel wanaagsan khaybu diin buu hogaaminaya waxbarasho uu hogaaminaya waqtigiisa ka faa'iiso bayna hadduu saaxiibkiisu xun yahay xumaan oo dhan buu hogaaminaya wiilka wanaagsan gabdhaha kula talinayna inay doortaan waxa lagu gartaa nolol maalmeedkiisa iyo sida uu u nool yahay hadday noqoto shaqadiisa waxbarashadiisa meelaha uu tago iyo qaabka uu u dhaqmayo oo idil waa qaab wanaagsan weey wiilka wanaagsan ee aad u baahan tahay hadaad gabar tahay waa hawlkar shaqaysta oo aan dadka kale ku hoos nooleyn waa qof aaminsan inuu xooggiisa iyo muruqiisa maalo shaqadu doonaba ha ka shaqaystee shaqo ceeb male ceeb waxa inuu qofku dadka shaxaato inuu baagmoodo yahay inuu hadhow reerkiisa wuxuu ku biilo u waayo marka qof hawlkar ah oo shaqaysta oo shaqo aaminsan oo dhididkiisa in uu wax uu ku soo dhiday cuno jecel qof noocaasa raadso hadaad gabar tahay waa nin cibaadada rabbi ku xiran oo ilaahay yaqaano oo ilaaliya maaragtay faraa'ida ilaahay ma aha sida gabadhii caqliga badnayd ee ragga kala dooranaysay kii ay tiri gabar hadda ka hor buraanburaysay ayaa waxay tiri kan garan salaadii waqtiga guul la faral yeelay googeyska cibaadada gafaya geesta uga leexday googeyska cibaadada gafaya yani cibaadada mar walba ay dhaafayso googeyska cibaadada gafaya geesta uga leexday oo masaajid soo gelin waqiis guur aan kala aado ayay tiri guur aan kala aado yani waxa ay dhaantay inaanan guursan meeshii midka aan garanayn salaada ilaahay uu faray googeyska cibaadada ka ah masaajidada aan soo gelin weligiis waqiis waxa weligiis aan soo gelin ka mid noocaas intaan guursan lahaa bay tiri guur aan kala aado marka waa ninka marka fiican waa nin ilaahay ku xiran oo cibaadaysta oo shaqaysta oo akhlaaq leh mid noocaas raadso hadaad gabar tahay markaan leenahay qof noocaasa qofku mar walba ma ahan inuu inta shuruudaas qaato oo ku cabiro 100% yani waxyaalahaas aan sheegayno wanaagsan qofkii aad ka heshid badankooda tilmaamahaas ku dhaqan talooyinka aanu siinayno ee muhiimka ah aan gabdhaha aan jecelahay inaan siiyo waxa kamid ah waxa loo baahan yahay inaad ogaatid oo aad mar walba laabta ku haysid wiilka aad qalbigaaga u furaysid inuu noqon doono mid aad isla bilaabi doontaan socdaalka nolosha ee dheer ilaa muddo inta ilaahay uu garto haddaba waa inaad maskaxda ku haysaa in doorashadaasi tahay imtixaan aad gasho inta aad nooshahay midka ugu adag sidaas daraadeedna ay muhiim tahay inaad isugu geyso wax allaaliyo wixii xeelad iyo khibrad aad leedahay si aad u ogaatid shakhsiyadda aad nolosha isla qaybsanaysaan inaad la tashatid dadka maaragtay way araga ay ugu horeeyaan labadaada waalid waxa kale oo muhiim ah inaad la tashatid marka qofka dooranaysid dadka ahlul xalli wal aqd dadka aqliga leh dadka waayeelka dadka way araga dadka maaragtay la tasho taladu wax xun maahan ceebna maahan ninkaasan raba inaan guursado ka waran qofka noocaasa ka waran inaad dhaxay ya waa tuulaha nin hadda ka hor waana jeedinayay haddaan weel gun laga tolin waayaha adduunyada xog ogaal la weydiin ruuxii kaa weyn lagu oran wax ii sheeg taladaadu wiilow dalab waayi mayso dalab waayi mayso yani inay kaa khaldanto ya weel guntinta laga tolaa weelasha waagi hore weelasha dumarka iyo dadka toli jiray marka weel kor laga soo bilaabay marka u horeysa unuga u hoos baa laga soo bilaabaa waayaha adduunyada dadka xog ogaalkaaga wax la weydiiyaa qofkii kaa weyn yani dadka da'da kaa weyn baa wax la weydiiyaa maaragtay dadka maaragtay talada hadaan saas aan dadka aadan la tashan ya waxa weeye waxyaalaha muhiimka ah waxa kamid ah qofku inuu tashado una istikhaaraysto
وحوي ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ها قفكي مهوغو قفكي استخار إلهي الاستخارة ودعاء ويلي قبر كستا إنay xifdiyaan ay muhiim tahay markii taas waa markii aad go'aanka aad rabtid inaad gaartid ka hor maartay inaad ilaahay aad weydiisid ilaahu tawfiiq iyo waafaji ilaahay la tashatid dadka waayeelkaana iyo dadka maartay aqliga oo saaxiibka ee diinta la tashid iska ilaahay inaad noqoto mid rag badan oo ragga marba mid la sheekaysata waa arin aad u dhibaato badan waxay keentaa ama ku bartaa waxyaalo badan oo noloshaada dambe dib u keeni kara haddaad doonaysid guur xalaal ah oo wanaagsan gabar yahay ku bilow shukaansiga ama qofka aad isxudanaysaan ama isla haasawaysaan wada xalaal ku bilow inta aad waqtiga sheekada ku jirtid iska ilaali la kali noqodka ninka aad la sheekaysanaysid iska ilaali inay afkaaga ka soo baxaan kelmado ama weero ragga dareenkooda kiciya sidoo kale waxa dhacda inay raggu ku yiraahdaan gabdhaha ay daa'iman ku dhahaan ku yiraahdaan hadallo ay ku beer la xawsanayaan waxa la yiraahdaa ar-rijaalu di'ab raggu waa dhurwaaye waa yeey sidaas daraadeed noqo gabar aan la dagi karin iyadana aan wax dagin noqo ha noqon qof aad daacad u ah oo shabaq kasto loo dhigo ku dhici karta geedaha waxa la horgoostaa kuwooda toostoosan dadkana waxa noloshooda lagu ciyaaraa oo la burburiyaa kuwooda aadka daacadda u ah noqo siduu lahaa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin lastu bil khabb wala al khabb yakhda'uni oo macnaheedu yahay ma ihi mid dadka khiyaama mana ihi qof uu khiyaami karo mid wax khiyaamo oo doqona uu khiyaamo ma noqonayo oo waxa ugu qiimaha badan ay gabadhu haysato waa cifadeeda dhowrsanaanteeda haddii ay dhowrsanaanteedu ay gabadhu weydo oo ay ku ciyaartana ilaahay xaqiisa iyo xagga dadka way ka dhacday gabadhaas hadaba hadaad gabdha tihiin ogaada jacaylku waa wax jira laakiin jacaylku waa inuu noqdo mid alle cabsidiisu ay u tahay hoggaan xakameeya waxa jirta arrin inta badan qof kasto wax jeclaada ku dhacda waxa dhacda in wiil aad ugu hanweynayd inaad iskuursataan aad hanan weydo waxaan ku leeyahay marmar bay dhacdaa wax aadan jeclaysan inaad aragtid marka waxba ha iska lifid waa tii maaragtay mahmaada carabtu ay ahayd oo bayt gabay shicir ayuu ahaa qad tajri riyaahu bima la tashtahi sufur marka qaarkood waxa laga yaabaa dabayshu inay u socoto dhanka maaragtay ay doontu ay u socoto dhanaan ahayn oo doontii ay socon weydo marka hawlwalin hana murugoon waxa laga yaabaa inuusan khayrba kuugu jirin oo Allah tabaaraka wa ta'ala badal khayru qaba iyo wax ka wanaagsan oo ku dibdhigayo hadii marka nin uu balanti kaaga baxay ama mid aad rabtay ay weeyid waxba hawlwalin hana israacin iska ilaali in meel cidla ah laga helo intaad nin iska raacdi kadibna aad isku qancisid inaan xaas la qabo tahay iyadoon wada sharci ah lagu soo marin waxaan taa ula jeedaa gabadhu ma mehersanto xaasna ma noqoto weli la'aan nabigu sallallahu alayhi wasallam حديث صحيح ترمذي أبو داود غير أيوريين أو حديث كاس وحاسحية الشيخ الألباني أي النبي يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قبل اللي مهرية يدون إذن لقى قاعدا ولي جيدا نكاحيده وباطل وحكمة جيرانه نكاحيده وباطل وحكمة جيرانه نكاحيده وباطل وحكمة جيرانه waxa laga yaabaa in uu soo meheriyay waliga halkan jooga hadhowna aad maaragtay aad u qabtid qof xalaal lagu qabo noqo gabar lagu hantay oo loo soo maray wado sharci ah sharaftaadu waxay ku jirtaa halkaas midda waliba gabadha sharafteedu waxay ku jirtaa markii waalidkeed uu bixiyo abwaan hal abuur ah waa tuu lahaa soo gabadhiisa la hadlayay inantii hawootee hiyigeeda guur galo aabaheed haneeyaa dumar ugu hagaagsan saas kale markuu hadal oo hees camal ay tirin inantii hawootee hiyigeedu guur galo ee aabaheed haneeyaa dumar ugu hagaagsan yani aabaheed uu bixiyo
يا تاسع دمر وهذا أحسن هدي أن ما عرفتي كل قينتي سأما أن ما عرفتي أن سخرت أسعينا وليد القادم يا إلى الماء الجبياء هذا تلوين كان وحايكو سعودان ما عرفتي قبلها صوماليين جوردونكا أما الله صوت دوني وحملين هاي هداد قبرتها أوجو oo niyada ku hay guurku waa mas'uuliyad iyo raaxo iswata lana la rabo in la isku qaato labadooda mas'uuliyadaas iyo raaxadaas iyo nasiinadaas baro gabadha si wiilashan oo kala soo talinay xaq lagu leeyahay baro intaadan baran xaq aad adigu leedahay oo aad ninka ku leedahay aad guursanaysid oo hadaad gabartahay waa inaad ogaatid ninku waa madaxii reerka adiguna waxa tahay wasiirkii oo ay micnaheedu ay tahay adiguna mas'uul baata isaguna mas'uul baleeyahay laakiin reerka oday waxa uu amar walba aabaha ama zawjka ayaa reerka oday u ah diinteena islaamkuna waxa ayna faraysaa inay gabadhu zawjkeeda wixii khayr ah oo daaca ilaahay aan macsi ilaahay inay ku ateecdo nacam ninkuna waxa la rabaa inuu reerkiisa la tashado diinteena islaamku waxayna faraysaa ashura wa amruhum shura baynahum wa amruhum shura baynahum markii leeyahay xukunka kaliya qoyska waa la iskala tashanaya wax walba waa la iskala tashanaya ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay oo aan gabdhaha ugu naseexaynaya qofku waa labo waxna waa wax ra'samaal ah ra'sumaal oo maguurto ah oo uu qofku leeyahay sida shakhsiyadiisa diintiisa dabeecadiisa wanaagiisa iyo garashadiisa waxna waa wax dhaldhalaal iyo xoogaa adduunyo ah oo qofka loogu xisho middan dambe ee adduunyada ah iyo dhaldhalaalkeeda way hari wayna dhamaan kartaa runna ma ah mana sii soconayso yaa xabaal iyo ninkeeda waa loo kala tagaa markay noqoto ma aragtay waxa loo baahan yahay marka mar walba in aad ku dadaashid qof diin leh qof wanaagsan qof ma aragtay xil qaadi kara qof dabeecad wanaagsan qof noocaas raadso ما عرفتي قبل عنك اسمان كينيديد وهم فيليا اسمان يوسف كينيديد وطولها أبار إيو برواقة إسحيقة لبا أيامودي أليل كينا وحن شوقين با إمان داراتي يعني الدنيا دو يسبد الشهادات نينك العقل لا يكون راعدي بريتو وحي واكد ما نكرا لكن مركا الدين إيو وناك إيو أكون راعدي النساء نو أرقني النساء أروسيادو لغو لغي هوتيلا واوين oo ma aragtay kadibna heerkii uu baabay dhaqso ku baabay guurku wuxuu barakadiisu ay ku jirtaa markii ma aragtay aan la cuslayn oo aan ma aragtay lagu xirin waxyaalaha adag lagu xirin oo ma aragtay u fududaado meherku fududaado aroosku ma aragtay iyo xafladda loo dhigay ay fududaato yaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa ta'ala inuu gabdhaheena qiimaha badan ee Soomaaliyeed oo sahlo guur wanaagsan oo ay ku dambeeyo bashbash iyo barwaaqo iyo amni iyo awlaad saalixa baa ilaahay uga baraya waxaan jeclahay inaan ku khatimo mar walba ha hilmaamin hadaad gabar tahay istikhaaro inaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad istikhaaraysatid inaad la tashatid dadka ka waaweyn iyo dadka waay araga ay ugu horeeyaan labadaadi waalid haday nool yihiin iyo waalidiinta kale ayda iyo abti iyo adeer iyo wixii la mid ah awoowe inaad ducadana aad barisid saas baan idin kula talinaya hadaad gabdho aad tihiin taladaas waxaan ka baryayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala in uu ka dhigo tii ilaahay dartiisa loola jeedo oo inuu ku anfaco dhamaantii